kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan halkan waa SBS TV xaruntiisa dhaxoo ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa la soo gaaray hawadeedii soo mari jirnay barnaamijkeena dhalinyarada maanta barnaamijkan dhalinyarada maanta todobaadkan waxa igu martiyay Ibrahim soo dhawaalaad walaal aad iyo wanaagsan Ibrahim tolo waa ku barnaamijka daawadayaasha taariikh nololeedkaaga kooban noo dulmar hadii su'aashaad weydiisay taariikh nololeedka wax ka dhahdo ugu horreyn waxaan ku dhashay markii hore tuulo la yiraahdo dubur oo ku taala waqooyiga magaalada Burco waxaan ku soo barbaaray intii badneed noloshada ku soo qaatay magaalada Burco ee gobolka Togdheer halkaas oo ka baxay dugsiga sare ilaa hoose dhexe ilaa sare markii dambe waxaan ka baxay iskuulka dugsiga sare waxaan ka dhameeyay 2014 markii dambe halkan ma Hargeysa nimi halkan Hargeysa waxaan ka bilaabay jaamacadda ilaa imkaan jaamacadda wada intaas inta kale taariikhdeeda hilaad kooban aan ku soo ururin kara Ibrahim kulay waxa tahay arday baa tahay waan kulay sheekooyin badan oo wad qortay magaalo badan sida igu magaalo ah sheekooyinka maxaa kugu dhalay horta inta badan kale nolosha bini'aadmi qof kasto bini'aadmi wax uu jecel yahay hamuum ka dhex ku haysta laabtiisa inuu rumeeyo ama hirgeliyo Soomaa taas waxay sababtay in qof kasto bini'aadmi himilada iyo hanku nolosha ka leeyahay kolba waxa uga dhow ku dhaqaaqo anu in badan baan wax akhriyay in badan kolkeen wax akhriyay markii dambe waxaan door bidan bal waxaan aan akhriyay fara badan feedback aan ku sameeyo macnaha soo celin oo dadkayga aan uga faa'iideeyo marka wax akhrido waxaad arkaysaa wax hore kula qurux badnaa oo imka kula fool xumaanay kulli marka wax kasta marka hore si kuleeyeen marka dambe si kuleeyay yar kala duwanaanaysa marka arrinkaas ay ugu dhaliyay iyo baahiyaad fara badan aan arkay in bulshadu ay u baahan tahay laakiin waxa ugu weyn waxa weey oo marka akhrido waxba soo celinaysa okay ma xasuustaa sheekada ugu horeysay aad qortay kula sheekooyin badan baad qortay sheekada ugu horeysay qortay ma xasuustaa ha sheekadii ugu horeysay qoray waxaan qoray 2013 waxaan ahayd sheeko ka hadlaysa adigu kulli qoyska ha maxaa kugu dhaliyay marka inaad sheeko ka qortid wallahi sheekada qoyska waxa igu dhaliyay kulli wax kasto doortaan ku sheegay baahiyaadkii bulshada ee khasaasiga markaad aragto halka ama dhacantaa soo banaan waxa ku khasabay inaad buuxiso hadii aad awoodayso marka taasaan marka yar eegay ayaan istuso inay yar tahay tan mid muhiim oo in muuqato in anigu halka wax ka yiraahdo ama ii furan tahay marka taas sababtay bal mid iyo laba nooga soo qabo sheekada ka qortay qoyska maxay ka hadlayay horta sheekadii ugu horeysay ee laakiin ma awaala ka qoray qoyska waxa la yiraahdaa waxaan galabsanaa guddoonsi waxaan galabsanaa guddoonsi marka talaga la galabsada la guddoonay maxay xuseysay kale horta qof kasto halka markuu siyareega waxa arkaya magacu marka ugu horeysay wuxuu sheegay in meesha dib la kala tirsanayo cid dhibana inay jirto cid la dhibayna ay jirto waxa ugu weyn waxa weeye qisadu ka duulaysa waxa weeye waxay ku socotaa ragga waxaanay leedahay waxa imika de qof walba wixii ninku dhibtii uu sii sameeyo ha ogaado hadhow wuxuu baa laga jaray cid qoyskiisaas markaas saas ka waa tahay maqaaladaad qortay keebaas oo kartaa bulshada ayuu wuxuu taray ama qayb banaanid dad buuxisay wallahi hortay aad iyo aad u farabadan dhamaantoodna qof kastaba dadku waa kala duwan yihiin qof kastaba mid uu ra'yi gaar ah ku soo biirinay kuna sheegaya inuu kaasi ugu wanaagsan laakiin anu markaan eegay kii ugu yara qaalisana una qiimaha badnaa inkastoo dhamaantooda qaalisanaayeen waxa sheekada aan ku sheegay mal awaalka ay ugu horeysay taasoo ka hadlaysay qoys nin markii hore nolosha hadaan si kooban uga sheekay u guud marwada daawadayaasha ama bulshada ula wadaago nin markii hore nin isagoo dhalinyaro ay maalmaha kamid ah kulmayaan inan de hooyo markaa curada dabeedna markay kulmaan inankii iyo hooyadii adu gabadhii inankii ninkii dhalinyarada ahaa markay muddo hadal dee dhex maro hadhow ay ku dhacayaan falaan dee diinteena islaamka suuban iyo dhaqankeena Soomaaliyeed naan ogolay kadib ninkii dhalinyarada uu iska tagaya
markuu tago beri dambe inantii aduu inankii gabadhii way kala tegayaan dabeedna waqti iyo muddo ka soo wareegaysa dabeedna muddo kadib dee sanawaad aad u fara badan kadib ninkii dhalinyarada ahaa uu reereysanayaa hadhow wuxuu noqonayaa beel meel degan inantiina dee hadhow iyaduna marka horeba dee qoys bay laakiin way sii tarmaysaa iyaduna waxay noqonaysaa beel gaar oo meel degan kadibna waqtiyo waayo badan baa kasoo wareegaya muddooyin badan kadib maalin maalmaha ka mid a ayaa ninkii berigii hore dee dhibaatadaa ku kacay arrinkaa sameeyey ayaa wuxuu imanayaa heer ayaa gurigiisii qoyskiisii buu dee sida dhaqanka Soomaaliyeed gelinka hore subaxa marka la soo kaco qoyska Soomaaliyeed sida dhaqankii Soomaaliyeed hore qof kasta shaqo u gooniyo leh odayga heerka waxa uu gooniya shaqo caruurta waxa uu gooniya shaqo hooyada heerka waxa uu gooniya shaqo Soomaa dhamaantood waa shaqo wada lahayn ninka odayga hadeen taa ka xusno taasay noqonaysay shaqadiisu waxay inuu gelinka horena tuuladii qabto oo heerkii u shaqeeyo oo heerku waxa dee wariyo wacaal wuxuu tuuladii ka soo maqlaba gelinka dambana soo carraabo heerkii dib ku soo warceliyay ama dee uga soo qaado wixii baahiyoodka waa meel ugu belamiyay tuulada meeshii dee ugu dhaweyd ama baahiyaad kale isagu leeyahay ama war kale oo soo kordhayba uga keeno oo dee feedka kale soo wada hoydo marka ninkii odayga ahaa heerka lahaa maalin kasta oo uu galabkii ku soo carraabay gurigiisa wuxuu ku arki jiray gurigiisii nin dhalinyaro ka sii baxay reemiguna kale dee iska sida dad isu soo galgalan maaha dadka labada qof meel maraya la arkay inaga halkan cid weys arkin baa laga watabta laakiin taade quleeda waxa u sii raacda garasho oo qof kasto meel maray qof iyo mid yani ama way sii hilaadin karaan ama way garan karaan dadna waxa dhacaysa ninkii odayga ahaa maalintii koowaad uu arkaya ninka dhalinyarada gurigiisa ka sii socda ninkan odayga dee gurigiisana waxa jooga hablo far badan iyo carruur far badan u dhalay dadna maalintii koowaad ee shaki baa yargelaya heerkiisii weydiinaya dadna waxa uu sheegay ninka inuu yahay nin inaan heerkooda u dhawo ana de waxyaabihii daruuriyaadkii qoysay heer u kala qaadan jireen heerka ugu yimo ka qaadanayay maalinta koowaad uu iska deynaya hadana maalin kale uu imanaya maalinta kale wuxuu arkaya galab kale la kulmaya dhabadii ku kulmaya isagoo dhabadii ka sii baxaya kana isagoo guriga soo galay oo soo carraabay oday dadna maalinta kale hadana de wax is weydiinaya de kullu qofkan waa waalid inoo soo gaagaaday qofkan kullu waa waalid kadib aduu ninkii sidii ninkii dhalinyarada ahaa marka maalintii ka daba tagay waxa uu ninkan dhalinyarada heerkayga lagu itixaamay balan soo eego deedna qoyskii halkiis ka deganaa markuu tago ayaa sadde dhaqanka miyigu yahay qofka wata duleedka laga soo weydiiyaa heerka dee cidda joogta ama dee yeerma duleedka qofku ka yeedha wariyaa jooga ama heerku muxuu lagu soo heeyay dee bariido marka ninkii odayga ahaa heerkii u dhawaabay soo u tago bariido duleedku ka soo hadlaya deedna isnaan ruux dumar heerkii inankii uu ka dhashay joogta ayaa u jawaabaysa innaga joogna heerku muxuu ku soo hoyday waa la fiican yahay dadna gabadhii isnaantii markay saa isu arkaan oo dee joogta xayndaabkii gurigii buulka hortiisa ayaa markiiba halkii ardaagii waxay ishiisa ku dhacaysaa qof uu moodo inuu yar garan karo uu ku soo dhawaanaya mise qofkani waaba isnaantii berigii ay kulmeen ayaa iyadoo dee isnaana isagana laba kan odaya waqtigaa soo way suuraysanayaan de kulli waa dad muddo kala maqnaayo war iyo caal fara badan baa dhex maraya qosol iyo farxad badan kadib xog iyo in badan oo dee ay wax isweydaarsadaan kadib marka dambe wuxuu sheegayaa dee inankii cabashada inankii balsooraya weydii inuu qoyska yahay in kala markuu weydiiyo dabeedna waxay u sheegaysaa inuu inanku qoyska yahayna kii berigii ay sidatay oo inankii odaygaaba dhalay inankii maya isagu muu dhalin macnaha dee berigii inan bay sidatay markay kulmeen markaa dabeedna odaygii ilay meeluu ka hadla ma jirto waxaana waa wuxuu hore u galay wixii dee isagana dee wixii la kula siiyey marka wuxuu oranayaa halkaasuu hadalka oraya wuxuu oranayaa dee intuu iska dhaqaaqo ilaa cabasha ma jirte hadii wixii dee waa kulli wixii dhacay waa dhaceen wuxuu hore u galay unbaa la guddoonsiiyey marka halkii uu hadal halhaysta ka oraya wuxuu oranayaa wixii aanu galabsanay ayana la guddoonsiiyey sheekada waxaan ka fahanay kulley waxa uu hore usii galay in imika laga jaraayo caruurtiisa ay ku dhacayso tabtaas aad iyo aad baad u mahadsan tahay Ibrahim ma xasuusataa maxaa kugu dhaliyay sheekooyinkaad qortid wallahi kulli horta in badan rabbigan subxaanahu wa ta'ala boqorka koonkan maamula marka diinta ama quraanka akhrido in badan qisas fara badan baa ku jira waxaana
إن وحنا رب الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن بدن قرآن كوحة لقول سوء علينا قصص كان قرآن كان لقول شيء إن الله سبحانه وتعالى إنه جبه هنا عبرة قاضن taasoo ay meel taalo dee rabbigeyn tusaalayaasha uu nolosha inooga dhigay ayaa bal anna wixii aan arkay ee bulshada ama xumaana ama ku dhex jira ayaa waxaan damcay inaan tusaale anigoo sheeko ama kala ugu soo qaadanaya si aanay u ilaawin tusaalada ku tuso qofku waxay u badan tahay qofka tusaale siisa sidii ilaawo way adagta laakiin qofka markii wax u sheegtad iska dhaafta kulay inay hoos maraysan jecel markaa saasaan u doorbiday inaan sheekooyinka u yara qoro sheekooyin badan bad qortay sida qaadka abaalka guurka sheekooyin badan bad qortay ma jirtaa mid adiga si gaar ah ku khusaysa ama aad qof in dhacday oo si gaar ah qof ka sameysay wani taa hortay wali hortay tanba waxaan arkay baan ka sameeyay tan mid adiga si gaar ah ku khusaysa mid gaar ah ay khusaysa wallahi ma taa ka kulli qof walba xawalihiisa hortay in kastoo dee nolosha waxna wax la soo bandhigi karo waxna wax dee la soo bandhigto qof kastoo dee qarsoon waayihiisa laakiin wali mid waxa aniga igu dhacay wali xukama qorin yaa kugu dhiirigeliyaan oran karnaa sheekooyin hal qortay waxyaabaha aad qoraysay kulay ma kala buug bad qoraysaa dhawaan aad soo bandhigi doontaa yaa kugu dhiirigeliyay gacankaasi wallahi horta kulay asxaab fara badan qofka saaxiibkiisu waa saameynta ugu dhow ee diinta islaamka ay noo sheegtay qofku inuu ama saaxiib qofku saaxiib wanaagsan yahay muhiimadii marka kale dhowr nin saaxiibanay oo abwaana leh qoraaya leh ee ugu dhiirigeliyay hawsha ninaanu saaxiibanoon mid iyo laba hadan ka sheego burcad jooga xajaa saartay leedah inaan kala cabdirsaaq oday leedah in kala cabdiraxmaan shiilan leedah in kala axmed sultaan cali salmaan leedah dhowr nin oo adigu saas ay ku dhiirigeliyay qaadka kulli waad ka qortay qaadka maxaa saameyn badan uu nagu leeyahay waan ognahay bas sheekooyinka qaadka qortay mid iyo laba nasqa wallahi horta qaadku waa aafada quriya ee maanta aafooyinka bulshadeena haysta kaalinta koobaad ama talabaad ka jira waxaad arkaysaa in badan hadaad usii fiirsato bulshadeena Soomaaliyeed ama bulshadeena dee reer Somaliland quriya dhibaatada qaadka ku leeyahay maalin kasta dee barkad kala kala arkaysa dad suuqa dhex marto waxaad arkaysaa meelo ama dhaqaale ahaan ama caafimaad ahaan ama bulsho ahaan wuxuu gaarsiiyay qof kasta waxaan kulay filaya qofkii dhac caafimaad qaba wax ku eegayaan dhaqaale iyo dan gaar ah eeganay inuu arkayo marka wallahi sheekooyinka hadaad weydiiso sheekooyinka teeba ugu yaraa xiiso badan horta xagga xiisaha taa ugu horeysay aan ka sheekeeyay laakiin dhamaantood kulay xiiso gaar ah mid walba maqaamkeeda ku leeyahay talabaad ee imika qaadka oo kale midaan ka qoray ayadana kulay xiiso gaar ah lahayd oo sidii aan u sameeyay dadsan u sawiray oo kale macna qof kastoo dee akhrista waxa dhow falcelintu kugu soo falcelinaya masuu kugu sheegaya oraya dee sidii ay waxaasi u taale wad abaarta ama wad sidii ay waxaasi u jirtay baad u tiri sheekada qaadka waxa la qiimihii noloshan lahayd oo la qaad baqaribay ayaan headline qodhay qiimihii noloshan ay la qaad baqaribay warna kulli dad badan buu nolosha kariidaan oran karna aad marka waxay ka hadlaysaa nin la yiraahdo qamar oo markii hore qoys yaroo kooban ka dhashay oo iska dan yara aabihiina uu dhintay oo labadii waalid ilaahay mid ahaan u reebay iyo inaan qowdhan leeyahay oo deegaankii uu ku noolaa kula noolaan jirtay markii dambana ayba de nolol iyo calaf ilaahay isugu daray de calaf wadaageen muddo iyo de waayo badan uu u shaqeynayay ama de uu islaha dhacantii qoyskiisa uu ku lahaa buux markii uu buuxiyay waayo badan noloshiisa markii dambe uu qaadku uu ka riday oo caruurta isagii xaaskiisa isku dhaceen sidaana isagii xaaski ku kala tagayaan dabadna xaaskiisii oo de markii hore ogeydee qiimuhu qowdhan lahaa waayihii hore dee uu intii qaadka baran inuu qof wanaagsan ayaa markii dambe dee qof kasta markuu weydiiyo lagu dhaha qowdhan maxaa ku dhacay caruurtiisii sootan dee meelahan dee dhibaatada iyo darxumada haysato ayaa waxaa dhahaysaa qiimuhu noloshuu lahaa dee isagu macnaha isaga dee iyada ujeeda qiimuhu noloshuu lahaa wala qaad baa qarribay marka kulay taasaan filaya inay qaadka quleyso inay tusaale wanaagsan de kulay u tahay waa tahay daawada wali halka nagala socota waa telefishinka caalamiga SBS TV haddaan ka soo noqono maxaa kugu soo noqda markaad sheekooyinka badan aad qortay maxaa falceli kaaga soo noqda wallahi kulli horta waxa la yidhi maxmaa Soomaaliyeed waxa taagari laba nin kama wada qosliso nolosha qof bilaadan ilaahay abuuray hadaa tahay waxaad sugtaa qofku caaya waxaad sugtaa qofku amaana waxaad sugtaa qof aragtidaad kolba sidato kugu raaca
waxaa joogtaa qof aragtida aad aaminsantay kaaga hor yimaado markaa kolley dhowr qof baa kugu odhanaya dadkan dee aan sidaa waxba akrinaan u dhexgelin waxay ku odhanayaan war maxaad bugaagtan iyo xaashadahan iyo qoraalkan iyo waxaan kaga meeraalaysanaysa laakiin qofka qiimaha akhrisku leeyahay ama qiimuhu cilmigu leeyahay garanaya kolley waa qof garanaya kolba halka qiimuhu dee waxaas leeyahay markaa kolley badankooda dadku ay igu dhiirigeliyaan in badanna waa arko ay dhiirigelisa laakiin qofta ka hor yimaado kolley la waayi maayo waran lama waayayo adigu kolley arday baa tahay marxaladaha dhalinyarada marka lagu jiro wax dadka caqabado badan baa ka hor imaada adigoo maanta barnaamijkii dhalinyarada ku casuumay maxaa dhibaato ka hor yimid oo jirta caqabado inta ardayga soo intada sheekooyin qoraysa inta imka bugaagta qoraysa maxaa ka hor yimid walahi kolley haddii aragtideeda kolley dhalinta dhibaatada haysataan caawa halkan iskula wadaago waxaan filaya dhalinta Somaliland maanta dhibaato aad iyo aad u weyn ayaa dul hoganaysa taasoo ay kamid tahay shaqo la'aantu taasoo ay kamid tahay dee wixii noloshii halkii qofkii dee bulshada kusoo kordhay oo wixii wadanka soo korayay qiimihii halkii laga filayo tagi waayay kaana kulle qaybna bulshada u sababa qaybna iyagaa u sababa iyagu u sabab yihiin maxaa kamid ah kulley qaybta bulshada iyagu u sabab yihiin waxaa kamid ah inay qaat balwadahoo kale dhalintii maanta dee balwadaha aad iyo aad u ragaadisay oo la hadhay laakiin kaalintii ay dawladdu ku lahayd waxaad moodaa inay ka gaabisay in loo sameeyo meelo technical oo dadkan macal aan waxbarashada ka weynaaday ay ku qaataan tababaro si ay noloshii dib u soo galaan in balwada lagala dagaalamo oo qofkii dee wax dhiganayay balwadan la kala ilaaliyo in qofkii hadhow soo baxay aan qabiil iyo dee wax lagu kala farsameyn qofkii soo baxay dee heer wanaagsan nolosha ka gaaray shaqo dee tartan xalaala loo dhigo qofkii dee noqdo qof dee hiyid iyo dee hal inta badan dhalinyaradeen waxaa lagu eedeeyaa kolley waan ognahay ardayda sanad kasta 90% baa wax ay wax barto ka soo baxa dugsiyada ama jaamacada waxa la raadsiday wax u barsan dalka wax ugu soo celiyaan maxaa taa ka waranaysaa كل أرض جامعات دكتنا وتاعي والله كل أنا واحد قبع أرتي سورة القرآن واحد توكل على الله مركز تقف في بلاد من ربك يتلا صارت تدتكنا كل اسم منها كل اللي يرفع ربنا يسقطينا ويجرته قليل بدن ودد عشان كل واللي هري مركز كل واحد لا يعرف كاس ده لفظ قيمته كل 50-50 وقيبسي marka taa ku dheedana kulli xal waa loo heli karaa hadii dhalinyarada qaar ay qaar dal dheerood ama ay ku daydaan hadii helayaan dhiirigelin baa galayso qofku wuxuu isku dayo inuu dadaalo oo markuu jaacadi ka baxo uu shaqo raadsado qofna waa qof leeysiyo demeers ka fadhiisanay marka dardaarankan halka dhalinyarada u marin waxa weey inay dadaalaan hankooda iyo himradooda ka rumeeyaan qof walba waxa uu faraa ku hayo ha yaraato ha weynaato ku qanacsanaado كل سورة القرآن واحد إنه مع العسر يسرا رب سبحانه وتعالى يقول لي أضيق كسته فضيل باك الضمبي كل وايها نورش سبيد بدلاي سكسم كل وايا دين ولا كسم باك الضمبي حن أذكرنا إن أدوين وحبات برتي هل كيف هذيك سنة سبب أدو محا والله كل قف كسته بلاني هني يهملوا لي حن شعلا كل دهان يهملنا يقش رئيسا نورتي فكرتي هان شعادة فكرتي وانبرتها وحبان جعلي تخصص قارين قاعد تا قالين كي قرارك ما يدنا وقول وإن برشة dhiirigelinteeda ka qayb qaadashada markasta bulshada inaad ka qayb qaadateen dhinaca wanaagsan u fikirta waa qayb muhiim marka kulleen waxaan jeclaa in hadii de hankayga wax farashaan wado ilaa master PhD de hankayga kale nololeed kulli markasta way isku dheereeyeen qofku hadal cilmi yeelato kulli wad halkii booska doonaysa wad gaaraysa marka kulli wax kasta cilmiga ka mutaakid kulli qabyaaladana waxaad ka qortay sheekooyin baad ka qortay maxaa qabyaalada maxaad ka qortay maxay qabyaalada ismaaday ku tim way kulli qabyaalada waxa filaya maanta waxyaabaha de bulshadeena Soomaaliyeed la dheeraran ay la no taasoo sidii Rabbi Subhanahu wa Ta'ala uu yiri si ka duwan loo qaatay imaka سورة ربي سبحانه وتعالى يدعو إليه إن خلقناكم شعوبا وقبائل تعارفوا ربي سبحانه وتعالى كلاين إسكان يده قبيلة كلا ددوان وحيد كردجا إنها إسكو كرتا إسكونا قوسطان لكن ده كأنه ده سومالي دوستي كلا يقاعتاي ويسكو حمينيان ويسكو حمينيان ويسكو يسيان
isagoo hadda dee qof kastoo biniaadmi qofka kale aan u xallaya wuxuu dheer yaanay jirin. Taasina waxay keentay in midnimadii ummaddu ay kala jabto. Qabyaaladda sheekan ka qoray sheekadaasina waa sheeko yaro ka hadlaysa in dee markii hore qoys dee lamaano ahaa qabiilna ku kala tegayo. qabyaaladina xitaa reeri ku kala tagaan bigaadho oo karna. Marka taasina waxa ka wadi wax dee bulshadu sidaas ay leedahay oo ka weyn qoysku ma jiro. kuwii qoyska ku wada joogay haddii qabiil ku kala tagaan dee cid kale ku sii wada joogaysa u malayn maayo inay jirto. Qabyaaladuna waa shay tusaale ahaan imika haddii la isla tusaale soo qaato shayga cuntada ee basasha la yidhaah oo kale weyn. Basashu waxay ka kooban tahay lakabyo fara badan, markastoo diirka sare qaado waxaa soo hadhaysa qayb kale. Marka waa si dhaadhacaysaa. Marka qofka qabyaaladda barta ama bulshada qabyaaladda deen weyda wuxuun bay usii kala qoqobantaa jilib qabiil jifo ilaa dee oday ay sii kala gaadhayso. marka taa qabyaaladda iyadana taasaan ka leeyahay waana wax u baahan olole taasaynu insha Allah ilaahay ka baryayno in dhalintan dambe imika Soomaaliland wax barata ay qayb muhiim ah ka qaadan joojinteeda. inta badan waxa laga dhalinyaradu iyadaaba qabyaaladda iyadaa sii fidisaba. adigu maanta barnaamijka dhalinyarada ku casuuman maxaa dhalinyarada qabyaaladda miyaga fidiyaan oran karna. wallahi kullu waqti qaybna way ka yinka manaha wasida dhalinta ilaahay baa subhanahu wa ta'ala abuuray oo qowle kala duwan bay ka soo jeeda. way jiraan qaar dad ugu adeega ururo dad ugu adeega ama meelaha fadhiyada lagu fadhiisto majaalista la fadhiisto ku diriraya. laakiin waxaan filayaa in dhalinyaradu iyada xor ka tahay xagga odayaasha ay u dhowday ahaashaas. waayo dhalinyarada ay adeeradii uma tago aftiyaashii uma tago laakiin odaygu mana garanayo qabiil kasta waxay kala geysteen. laakiin ninka odayga ama ninka weyn wuxuu kala garanayaa laba qabiil kasta xiriirkooda wax kastaaba dee si u jiraan wacyi kasta iyo waayo kasta meesha yaalaan. marka kale waxaan filayaa dhalinta xagga qabiilka inay aad uga caafimaad qabto laakiin ay u baahan tahay kasi wacyi gelin si uga sii wanaagsanaato. waa tahay in bahalkii adigu ay kulay waxa qaatay fakalka xanaanada xoolaha iyo waxyaabahaas maxaa ku doortay fakalkaas? kolkii aan hilaadii aan doonay inaan dee jaamacad galo ayaa waxaan isbarbar dhigay qofka bini'aadmiga haddii waxaa jira waxyaabo fara badan oo marka saa u eegto bulshada waxa horta faa'iido walba baad baranaysa. dee dadkeenu maanta cilmiga waxun bay u bartaan inay dee farhunguri qofku dee inuu waxa dee wax ku heshay. laakiin kulli waxay aniga waxay la tahay qofku inuu wax u barto way warbaahida bulshada halka taala maxaad ka fayn karaysa. marka anigu dhowr jeer oo gobolkii aan joogay ayaa saa u dhindheeyay dadka inta ugu badan waxyaabo kale oo artist ama waxyaabo kale oo technical oo gacanta laga qabto ama waxyaabo kale barbartaan ayaan markaan eegay oo booskii aan islahaa bulshada waxbaad uga qaban karaysaa waa booskii aan islahaa bulshada waxbaad uga faa'iideyn karaysaa. waa arrin aan arkay oo Soomaalidu wadda xoolo waxay ugu jirtaa laf dhabarta koobaad. marka taasaan iyadoo familkan ka soo jeedo badan xoolo dhaqato marka taasaan ku doorbiday iyo gobolkan ka yimiba taasaan ku doorbiday inaan barto xoolaha si aan hadhow waxna u tari karo dhib iyo dheefba wixii aan dee macnaha cilmi dee bartay la wadaagi karo. marka taasay ugu kaliftay. waa tahay Ibrahim haddaan fursad ku siiyo maxaad su-aasha kan dhalinyarada aan maraysaa maxay tahay? wallahi ugu dambeyntii anigu dhalinta waxaan kula dardaarmi lahaa dhalinyarada meelaha joogtaanba gobol tuulo dal dibad waxaad kula dardaarmi lahaa inaad dadaashaan rabbigiina la kaashataan. maanta dalka waxaa dee ugu badan meel kasta iyo mansab kastaba jooga oo odayaal uma dadaashaan sidii odayaasha halkaa joogaa berri talo gala wareegi doontaan. intaa dardaaran ka weynaan oo kula dardaarmo. wallahi halkan waxaan ka salaami lahaa asxaabteeda qaaliga iyo familkaygaba gaar ahaan haddaan dee cid ka xuso qofka labadeyda waalidka nool hooyada Ibrahim Cabdi oo ah qof abaal badan nolosha igu leh. waxaan kaloo asxaabteydana ka xusilaa ninaan saaxiibano la Shaafici oo qoraaya ninkaasoo abaal badan igu leh. labada qof baan halkaa dante soo koob asxaabta dee qof inba in ka sheego intaasaan kusoo koobila laakiin dhammaantood aad iyo aad baan u salaam TV-ga SBC iyo dhammaan shaqaalihiisaba aad iyo aad baa mahadsantihiin.
fursadda qaaliga ay siiseen. waa tahay daawadayaal inta waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeen dhalinyaradii maanta oo toddobaadkan igu martay Ibrahim barnaamij lamid inta ku kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.